marka horeysa haddii aan maamul ugu mahadnaqayaa wasaaradda qorsheynta iyo intii kala shaqaysayba ee soo samaysay meesha banaaniga in hor yaala maanta waxaa halkan loogu cad u yahay meesha banaanigii labaad ee Soomaaliya samaysatay waxaa halkaa ka muuqata kii hore warbixinta la siiyey oo ahaa 12 ilaa 16 waxaa inoo sheegay wasiirka hore ee qorsheynta in lacag 60 milyan lagu hirgeliyay oo ah sanduuqa horumarinta Soomaaliya Development Fund taas waxay tusaysaa in aanu wixii loo hayay xaalis dhaqaale iyo wixii la qoray aanay isku qiyaasnayn waxaa sanadka waxa kusoo biiriyay 7 milyan iyo barba sanadkii 5 sano hadda dowladda sheegana على 10 مليون قدرت على سنتها سنة ما راح يعطينا إنه ففي البلان كهراء وما وصعب غير لأنه هرب اللي ما كان يروح ما كان كانوني معهم وحنا اللي لبص على دولة اللي بدعي ولو كل اللي تركي إذا لو كل يكوي لا تركي هذا واحد جينا لو كل يستوي تركي وكان هذا واحد على كتاع يقول لي لبص على أين الأعفان وصدق صنعوها أكثر واحد هو وقتنا اللي قليل أنا سأيو قصة عن السيدي وعند أربعة سيدا الشيعين مختار وملك ورث التاريخ هنا أي أربع كبرنا عن جورجا هكذا كان مقطع نشر أوربن بلانينج كسولة ومشير يبدأ كاسو جوري مقالون كسو قليلا sidii loo kala dejin lahaa organization loo sameeyo lahaa planning isna kama muuqato marka waxaa muuqata inaanu qorshaha marka la eego xaaladda iyo institutions ee noo dhisan hadda institution hirgelin kara qorshaha maaha waxaa sheegay wasiirka dakhliga wuxuu waa in hay-adihii hirgelin lahaa la sameeyo maanta institutionskiina waxay aragtaa inay very weak yihiin oo institution building aan waday oo hoos uga dhacay aragtaa marka anagu hadanahay dadka soo socda insha Allah taala anagu waxa bedel insha Allah taala waxaan sameynaa inuu waxa kulmiye policy economic policy waxa weeye waa exclusive economic policy ayaa socota oo dayro qurunba dhaqaalaha oo gacanta u galaan iyo elite isku tagay ana waxa sameeyay inclusive economy oo sameeyay insha Allah taala waxaan jecelahay insha Allah taala inaan wasaaradaha yareyno 68 kan 3 toban ka soo dhigi doona insha Allah taala meel soo waxaan dhigi doonaa qofkii technocrat ka garanayay every level capacity si level dhigi doona wasiiraan علم الأهم وسياسة الله خير كثير جزء يكون الله إن شاء الله تعالى مكة أنا وكاي ما سمعي واكي كل بيت ويفوت علينا إن شاء الله تعالى هيك إنسان لكن ما بيوصل النهارده ما هي كلي كتان and institutions هو very weak population immature وطن فقيرة أو هبيك كسر صدق بقول أو كل أو دولار كترابية توجه or tracks lagu soo iibiyo qaab ma hirgelin karo nashid banaaniga waxaan soo jeedin lahaa inaynu lacagta adag ee baxas ee birta lagu iibsanayo oo inta bir la soo qaato suuqa laga iibinayo oo lagu furanayo lacagta doolarka lagu furanayo LC in lacagta birta lagu gacan ku wato oo wadada la yiraahdo comfortable aan laga dhigay lana lacagteedii maanta toba jale ku baxda qofka soo urursanaya halkaas ay martaa marka taas waa joojina insha Allah taala Itoobiya wala macaamil doona laakiin way noqotaa macaamil siman oo labada wadanba isdaabsan karaan one way system ma joojina insha Allah taala ilaahay hadaba ma sayid madaxweynaha waa tagabi waa u sheegay oo qabtay inta dawladdu soo sheegay karta wasiiradiisa waxa sheegay ka waa ma sayid ka waa sheegay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته